Excellencies, heads of states and governments, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. It's an honor and privilege to address you all on the occasion of the 13th madaxda dawladaha iyo xukuumadaha dalalka midowga Afrika guddoonka shirka iyo marti sharafta kala duwan mudanayaal iyo marwooyin waxaa farxad iyo sharaf ah inaan dhammaanteen ku wada hadalno munaasabadan meertada 13aad ee kulamada aan caadiga ahayn oo ku saabsan aagga ganacsiga xorta ah ee qaaradda Afrika waxaa xaqiiqo ah in tallaabooyin muuqda loo qaaday xaqiijinta aragtida iyo himilada midowga Afrika ee muddada dheer soo socotay ee la xiriirta hirgelinta aagga ganacsiga xorta ah oo heer qaaradeed ah taasi oo ka dhigan tallaabo weyn oo wadajir loo qaaday dhinaca saxda ah ee xaqiijinta nabadgelyada waarta xasiloonida iyo horumarka dhaqaale ee qaaraddeena hodanka ah si ay horumar u gaaraan dadkeena iyo qaaraddeena waa inaan ka faa'iideysanaa kheyraadkeena iyo kartida dadkeena waa inaan u noqonnaa dalal leh wax soo saar dhanka warshadeynta ah dhexdeennana aynu xoojinno ganacsiga iyo isku furnaanta dhaqaale waxaan u mahad celinayaa oo aan u hambalyeynayaa walaalkay Maxamed Isafuu madaxweynaha jamhuuriyadda Niger oo u ololeeyay hirgelinta aagga ganacsiga xorta ah ee qaaradda Afrika iyo hogaamintiisa geedi socodka wada xaajoodyadii ay ka qayb galeen wasiirada ganacsiga dalalka Afrika inkasta oo wada hadalladu ay ahaayeen kuwa dhammaystiran oo hawsha dhami ay ahayd mid wada tashi ah waxaa muhiim ah in la ogaado in weli ay dhiman yihiin tallaabooyin kale ka hor inta aanu gudagelin dejinta sharciyada iyo habraacyada hagaya hannaanka ganacsiga xorta ah ee qaaradda Afrika. Soomaaliya is a signatory state to the African Continental Free Trade Area will be seeking to capitalize on its people's proven entrepreneurial skills alongside our extremely strategic location. Soomaaliya oo ka mid ah dalalka qalinka ku duugay hirgelinta aagga ganacsiga xorta ah ee qaaradda Afrika waxaa ka go'an inay ka faa'iideysato hal-abuurka ganacsi ee ay ku tilmaaman yihiin dadkeena Soomaaliyeed oo ay weheliso booska istiraatiijiga ah ee uu dhaco dalkaygu waxaan ku kalsoonahay maadaama aan leenahay xeebta ugu dheer qaaradda Afrika iyo qurba joogteena saameynta caalami ku tilmaaman in Soomaaliya ay udub dhaxaad u noqon doonto ganacsiga Afrika isdhexgalka dhaqaale iyo kobaca wax soo saarka qaaradda dawladda Soomaaliya waxa ay mudnaanta siinaysaa dib u eegidda iyo hagaajinta dhaqankeena iyo xeerarkeena ganacsi si aan ula jaan qaadno qorshaha ganacsiga xorta ah ee Afrika oo si xawaare leh ku socda waxaa muhiim ah inaan dhammaanteen wadamada xubnaha ka ah qaaradda la siiyo waqti iyo taageero ku aadan la falgalka qorshaha heer qaaradeed iyada oo xoogga la saarayo dhammaystirka arrimaha taagan ee diyaarinta sharciyada iyo siyaasadda la xiriirta tartanka furan dhowrista hal-abuurka iyo ganacsiga dhanka internetka iyada oo la sameynayo hannaan bangi oo ka dhexeeya dalalka midowga Afrika kuwaasi oo wax badan ka tari doona fududeynta isdhexgalka dhaqaale maalgashi iyo ganacsi. The realization of successful implementation of free trade in Africa needs many different partnerships. Accordingly, is vital for the international and African financial institutions, including the World Bank, African Development Bank, xaqiijinta iyo hirgelinta ganacsiga xorka ah ee Afrika waxa uu u baahan yahay iskaashi xooggan iyadoo ay muhiim tahay in hay'adaha maaliyadeed ee caalamiga ah iyo kuwa Afrika sida Bangiga Adduunka iyo Bangiga Horumarinta Afrika inay xoogga saaraan isku xirka kaabayaasha dhaqaalaha iyagoo ku garab istaagaya dalalka xubnaha ka ah qorshahan farsamada iyo xirfadaha muhiimka u ah fahamka faa'iidooyinka waaweyn ee uu leeyahay ganacsiga xorta ah ee Afrika gabagabadii aagga ganacsiga xorta ah ee qaaradda Afrika waxa uu noqon doonaa fursadda ugu weyn ganacsiga xorta ah ee adduunka iyadoo ay heli doonaan suuq ka kooban 1.3 bilyan oo qof iyo fursado dhaqaale oo faa'iido leh run ahaantii tani waa guul aan ku faani karno maadaama aynu ugu dambeyn u dhaqaaqnay mideynta xuduudeena dhaqaale xaqiijinta xasiloonida horumarka iyo mustaqbalka dadkeena Soomaaliya waxaa ka go'an horumarinta ganacsiga
iyo kobcinta fursadaha shaqo ee shacabkeenna si loo xoojiyo qorshaha horumarineed ee midowga Afrika ee qaarad nabad ah oo barwaaqo ah. dhammaantiin waa mahadsantihiin. Of an integrated, peaceful and prosperous Africa. I thank you all, Excellencies.